waxaana wanaagsan dhammaan meeshaan naga daawanaysan halkan waa Hargeysa Online aan aalabaad ka daawataan hargeysaonline.net. Waxaan caawaan ka hadlaynaa xaaladda ugu dambeysay ee ka taagan waddankan Mareykanka. Waxaa arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay aqalka baarlamaanka rabshado iyo maxay ahayd tolay iyo dad aad u careysan oo galay sidaan la wada socnaan xogaha aan ku helaynay. dadkaasoo taa aad u taageersanaa Trump madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhammaanayo iyadoo caawa ilaa berrina la sameyn doono in impeachment ama xukunka laga tuuro iyadoo la cuskanayo qodobka 25aad farqadiisa afraad in uu hawshiisa uu gabay uu qabsan kari waayo ama waddanka uu ku yahay khatar oo kale. marka sidaan la wada socno madaxweyne Trump ayaa waxaa laga xiray social mediahii iyo lacagihii uu ku kaydsanayay meelaha oo dhan ayaa iyadana la wada xiray. marka haddaba su-aasha waxa weeye maxay soo kordhinaysaa mar labaad in lagu sameeyo impeachment Trump. taas waxaa ka hoos laaban inaan mar labaad inuu soo sharaxi doonin isagoo doonaya siina sheegay in maxay ahayd tolay madaxweynaha la doortay ee Biden kadib markuu ka dhamaado inuu u taagan yahay oo isoo sharaxi doono inuu mar labaad maxay ahayd tolay oo madaxweyne noqdo. taasoo ay ku dhiirigelinayso taageero fara badan dad badan oo cadaan u badan cunsuriyiin ah in maxay ahayd tolay uu mar labaad uu haweysto inuu halkaas soo sharaxo. haddaba waxaan ka wareysanaynaa Maxamed Cabdilaahi Shiine oo ah aqoonyahan aad uga faalooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan Minneapolis. marka Maxamed ma maqlaysaa? waxaan ku weydiinayaa bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa wixii ka dhacay arbacadii lasoo dhaafay iyo xaaladda ugu dambeysay meesha la isla marayo hadda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامي هذه هي دمان اللي دقيسني سبا أن أربعة waxa Mareykanka ka dhacay wuxuu ahaa wax aan marka horeba aan la qiyaasi karin oo guud ahaan waxaanu la soconay in certification-kii guushii xisbiga dimuqraadiga doorashada ka gaadhay iyo madaxweynaha Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris certification-kii electoral college-ka oo la keenay la tirinayo sida uu dhigayo constitution-ka waddanku ama dastuurka waddanka u yaala labada gole inay yimaadaan madaxweyne ku-xigeenkuna uu gudoomiyo taas oo iska ceremonial ah oo ah xaflad lagu tirinayo electoral college-kii gobolada ka yimiday waxa ay andara ahayd oo qorshaysnayd oo la soo abaabulay in mudaharaad laga soo horjeedo White House-ka hortiisa ka dhacayay kaasoo madaxweynaha iyo inuu dhalay iyo wakiil ka socda golaha baarlamaanka oo laga soo doorto gobolka Texas baan malaynayaa iyo lawyer-ka madaxweynaha oo Rudy Giuliani ay ka hadlayeen iyagoo dadka markaa u sheegayay walayna dhacay dad caqli badan baa tihiin waxa laynagu sameeyay waxaan dadka lagu sameeynin isla habeennimadaana waxa dhacay doorashadii run-off-kii Georgia iyadoo markaa laba dimuqraadiya sanadka markii u horeysay ay ka soo baxaan gobolka Georgia taasoo mid ka mid ah madow ahaa oo sanad ah kaasoo waliba taariikhda inta la hayo ninkii u horeeyay ee madow ee laga soo doorto gobolada South-ka ama Bible Belt gobolada la yiraahdo oo ka socdo iyada laftigeedana ay sheegayeen in xalayna la dhacay mishiinadu in siyaabo qaldan ay u tiriyaan codadka marka inay gacmahooda sharciga ku qaataan isla markaana ay tagaan state capital-ka iyagoo dadka ku dhiirigelinay raaci doonaan hadallada ay ku hadlayeen dhammaan marka la eego dadka ama prosecutorska public prosecutorska iyo dadka eedaha kusoo ooga dadka dambiyada gala
ama state of Virginia ha ahaato Washington ku dhow ama ha ahaado Washington DC ama Maryland ragga laga warsanay ama kuwa federaalka ama FBI-da ama wasaaradda cadaaladda Department of Justice-ka waxay sheegayaan hadallada halkaa laga yeedhinayo dhan inay ahaayeen hadallo qofka madaxa ah ee xafiis fadhiya dambi lagu soo oogi karo kaasoo ku kacaya inuu kiciyo dagaal abaabulan oo hubaysan natiijadiisuna ay dhashay in ay 4 qof hadda 5 qof bay marayaan qof kaloo booliis ah dhintay 5 qof ay meesha ku dhintaan ayaan daradaasi waxay keentay in ciidamada booliska ay jooga capitalku ayna ku filnayn ayna u diyaarahayn sida laga warqabo inuu dhacay delay ciidamadii kale national guardka maadaama Washington DC ayna state ahayn mayor kuma amri karto national guardka marka processkaasna delay baa ku dhacay in ciidamo badan tagaan oo ay ka hortagaan hawshan waxa dhacay waxaynan filaynin taariikhda Mareykankana aynan marnaba islahayn way dhici kartaa waxa dhacay in gudaha loo galay mataqaana state capitalkii oo uu joogay hogaankii dalka ee number 2 iyo number 3 madaxweyne ku-xigeenkii iyo waxa halkaa joogay House of Speaker Nancy Pelosi oo labada qof ee madaxweynaha bedeli karaya hadday hawl timaado iyagoo markaa dadka madaxweyne dhiirigelinayay taageerayaashiisu inay gacmaha ula tagaan ciddii siyaasadahan kasoo horjeesatay ayaa loo soo wartay taasi waxay keentay natiijada caawa loo fadhiyo ee ah in madaxweynaha mar labaad la impeach gareeyo isagoo oo xilkiisii ay ka dhiman tahay muddo 8 maalmood dadka qaar waxay qabaan maxaa faa'iido ugu jirta xisbiga dimuqraadiga maxaa faa'iido ugu jirta dalka Mareykanka maxaa faa'iido ugu jirta dadka arrintaasi aadka uga xumaa inay dhacdo maxayse keeni kartaa kala qaybsanaanta dadka Mareykanka may sii fogeyn kartaa oo dawladda soo socota waxa ku adkaan doonta isku keenista dadka inay isku keenaan dadka waxay leeyihiin oo u badan Republicaanku impeachment-ka ayaan lagu degdegin qolooyinka impeachment-ka dabada ka riixaya waa laba group xoogiisu waa xisbiga dimuqraadiga oo leh sharcigu waa inuu shaqeeyo inuu qofkani accountability waa inay jirto oo dimuqraadiyaddii baa khatar la geliyey waa in markaa qofkan tallaabo laga qaado maadaama madaxweynihii uu ka tagay 8 cisho tallaabaad ka qaadaysa maxaa faa'iido ku jirta la isweydiinayaa taasna waxay leeyihiin waxa faa'iido ku jirta madaxweynuhu wuxuu noqonayaa madaxweynihii u horeeyay ee taariikhda 2 jeer house-ka ama guriga wakiilada uu impeach gareeyo oo dambiyo uu kusoo oogo laba waxay keenaysaa in uuna suurtagal noqon xanta jirta ee odhanaysa lacag buu haystaa oo 2024 ku rabaa inuu soo ordo taasna inay meesha ka saartay ay rabaan oo una dib public office uu u qabanin waxa kaloo iyaduna ku jirta pensionkiisa 219,000 ah oo sanadkii ah isagana uu waayayaa haddii la impeach gareeyo waxa kaloo waayayaa $1 million oo travel expenses-kiisa ah oo sanadkii loogu talagalay waxa kaloo waayayaa secretary-ka ciidanka ilaaliya madaxweynimada dabadeed يعني كان راح قال يعني مركز هذا 1 مليون أو travel expenses كا وأنتوا يهاي مدحونا مدحونا كدب وحوايوي مدحونا كدب أوكي waxay madaxweynayaashu helaan caafimaadka ayaa laga bixiyaa security-ga laga bixiyaa 290 kun bishar ay qaataan $1 million oo waxay leeyihiin travel expenses sanadkaas intaasoo dhan waaya oo benefitka madaxweynimada kadib qofku helo haddii 2 jeer lagu impeach gareeyana waxaasi hawada ka baxaya waxa intaasi dheer oo hadda durba uu waayay oo saameyn ku yeeshay xagga businesskiisii in dhammaan waxay dadkii ama kambaniyadii bangiyadii iyo xiriirka ula lahaa oo dhan ay xiriirka u jareen example waxaad maqlaysay tartankii golfka oo internationalka ahaa oo golf isagu leeyahay lagu qabanayay way kansaleen meel kale uga wareegeen bangiyadii lacagaha ku lahaa oo dhan xiriirka waa u jareen hadda madaxweynaha Mareykanka
corporatekii xagga social media sida YouTube oo kale waxay suspend garaysay Donald Trump accountkiisii waxaa kaloo ku jira Facebook waxaa ku jira Instagram-ka waxaa ku jira maxay Twitter-ka waxaa ku jira dhammaan social media hadana way joojiyeen in la kofar gareeyo wixii account ku lahaana waa la joojiyey corporateska waaweyn oo dhanna wixii ay donation siyaasadda siinayeen way joojiyeen Mareykanka saad la socotana dhaqaaluhu waa oxygen-ta ama hawada ay ku socoto siyaasadda Mareykanku haddayna lacag ku soconin qofkaasi meel ma gaarayo marka xaalkiisu halkaas u marayaa laba sharci baa markaa hadda hor yaala Congress-ka mid waa kan caawa loo footeynayo oo ah in madaxweyne ku-xigeenku uu dabaqo sharciga 25aad article-ka 25aad ee ah in madaxweynihii shaqada uu gudan kari waayo marka madaxweyne ku-xigeenka iyo qayb ka mid ah cabinet-ku half inay u codeeyaan oo xilka la wareegaan taasi madaxweyne ku-xigeenku uu ka hor yimiday waayo sharcigaasi laguma dabaqin xaalad caynkan oo kale ah weli taariikhda inta la hayo waxa uu sharci u qornaa in uu madaxweynuhu ama dhaawac soo gaaro ama caafimaad darro uu shaqada u gudan kari waayo marka inta la proof gareynayo dhakhtar loo tagayo isaguna diidayo hadlayo waqti bay qaadanaysaa suurtagal midda kala badh oo badh golaha wasiirada way tageen iyo dadka mataqaana madaxweynaha ka garab dhawaayo dhan way iswada casileen xilalkana way ka tageen oo cabinet fara badan lama hayo taasi waxay keenaysaa oo u gogol xaaraysaa berri subaxa in official impeachment-kii la galo oo uu house ku galo iyadoo caawa la sheegayo 20 Republican inay ku jiraan iyaguna ay codeynayaan gruubka marka Republicanka doodoodu way ka duwan tahay dooda dimuqraadiga laba qaybood oo kala jaban yihiin hadda qayb rabta inay madaxweynaha la sii socoto ay hawsha kula sii jirto oo iyaguna hadda soo kala haraya because cabsi badan bay ka dareemeen xagga corporateska waaweyn iyo sharciyada hawshan la galay iyo qayb iyagu rabta in ninkani uu baxo Donald Trump la impeach gareeyo oo ka baxo hawada una public office tabana soo gureyn because principleski iyo xukuumadii asaaska u ahaa xisbiga Republicanka ayaa jabay xisbigu wuxuu noqday xisbi uu leeyahay dariiqyadii la yaqaanay ama small government ha ahaado ama moral issue ha ahaado ama family value ha ahaado ama mataqaana in xagga taxation-ka in la yareeyo waxyaabihii lagu yaqaanay oo dhan waa laga bayray wuxuu noqday xisbi qof leeyahay dhinacu doono loo wadi karayo iminkana cabsi badan waxa laga qabaaba inuu nabadgelyada khatar geliyo marka xisbiga Republicanku badankoodu hadda waxaad moodaa inay leeyihiin in madaxweynuhu uu baxo ilaa impeach gareeyo ilaa Britain suginaa tahay impeachment-ku inuu dhaco waa gartay maxay ahayd toolay horta waa madaxweynihii ugu horreeyay 2 jeer laga keenay mooshin xilka laga xayuubinayo maxay ahayd toolay ta kale waxa la yaab leh isagu sababtu isku casil laayay maxay tahay markaa maadaama 2 jeer laga keenay muxuu ahaa impeachment-kan muxuu ahaa weliba dee weegna u harsan tahay weliba uu arkaya xaaladda meesha ku socoto uu dee White House-kina iska sii fadhiyo saakana uu tagayay muxuu ahaa Texas marka waxaad moodaa inuu xoogaa isku yara dhijinayo maxay ahayd tolay doorasho kasta la galanaysa hadda aad sheegtana haddii laga guuleysto waxa weeye waa layga badiyo yani waa layga yani muxuu ahaa dhacay kale ayuu taagan yahay mar kastaba horta intaan usoo noqonayo sababta isku dhijinayo hadda waxaa codkii dhammaaday in mooshinkii la geli lahaa xilka lagaga xayuubinayay baa loo codeeyey tirada Republicanka ee la codeeyey dhinaca dimuqraadiga waa ilaa 220 baa codeeyey ilaa 8 way ka aamuseen tirada noolahaydna way ka yar yihiin majority marka Britain hawsha waa lagu gudagalaya sababta isku dhijinayo waxaa jira madaxweynaha inay dadka qaar hadda been u sheegayaan oo ay dad ku wareejisay ay leeyihiin rajaa jirta mar ay yiraahdaan electoral college-ka adiga ku codeyn doona iyo mar ay yiraahdaan waxa ku codeynaya house-ka ayaa celin doona oo halkaas ku joojinayna intiiba hadda way soo dhaaftay
waxay hadda maraysaa in uu raadiyo dareen inuu raadiyo inuu isagu isdamiinto sababtuu si joogo dad badan ayaa ku hareeraysan dad badan baa ku hareeraysan oo dambiye galay dadka badan ku hareeraysan waxa ay filayaan in uu damiinto marka kama tagayo ilaa uu dad badan damiinto isaguna uu isdamiinto xilka kama tagayo sababtuu si jooga waa intaa waxa xilligan isku soo gaarsiisana waa intaa waa laga yaabaa si uu u badbaadiyo benefitkiisa inuu maalinka week markii ka hadhan tahay ama dhowr cisho markii ka hadhan tahay inuu iscasilo waa possible laakiin hadda wuxuu saxeexayaa caawa la sheegayaa inuu aada ugu mashquulsan yahay inuu qoro damiin fara badan caadiyan waxaa jira wax dhaqan u ah maraykanka madaxweynaha maraykanku marka uu xilka ka tagayo wuxuu bixiyaa cafis fara badan oo dad xidhan iyo dad dambiye galay ayaa cafis madaxweyne ku baxa oo aan dib loo raadin adduunkana wadamo yar umaan lahayn waddan kasta dastuurkiisa uu jiraa madaxweynuhu inuu cafis bixin karo marka cafiskaas ayaa la sugayaa dad badan oo ku xeersan oo iyagu intii way la joogeen waxyaabo badan oo qaladada sameeyey dartood ayaa loo joogaa mooyaane waa ka ambabaxay maantana waa qiray in administrationka dambe soo socda ay hawsha kala wareegayaan wuu ogyahay sababuu waan gartay wuxuu mar kasta ku celceliyey inuu tegin caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden caadana waxa uu ahayd wadankan de kolay markuu madaxweyne la doortay mid kalena inuu de goobjoog hada xafladda oo sida xilka ugu wareejiyay maxaa markaa loo maleynayaa walow Biden yiri waxba uma arko isagana uu hanjabayo uu leeyahay muxuu ahaa hanjabaad markasta uu sameynayo maxaa dadka u dhow ama yaqaana xalay waxaan daawanayay Mary Trump gabar la yiraahdo oo adeer u yahay oo cilmiga psychology-ga baratay waxay leedahay waa markii uu horeysay la yiri waxbaad weyday noloshiisa marka qofkuna way ku adag tahay bini aadamku waxay leeyihiin ego wax qofka dareenkiisa una qaadi karin markay ku dhacaan oo maskaxiyana waxa ninkani ma qaadi karayo waa sababta keenaysa in la yidhaahdo waa lagaa helay yaa aad bay waa 775 milyan bay u codeeyey waa lagaa helay way ku adag tahay inay ka dhaadhacdo ciddii ku odhan lahayd waa xisbiga republicaanka inay si loud and clear u yidhaahdaan iyagana dhammaan xisbigu waa abduuban yahay muddo 4 sanadooda taasi horta suurtagal ma aha inuu si fudud ku ogolaado oo sabab badan oo xagga maskaxda bini aadamku sida u shaqeyso dadku way kala duwan yihiin ayaa ka duwan sida ay tiisu u shaqeynayso ay informationka inagu aan arkayno sida isaga maskaxdiisa u galayso way ka duwan tahay sida inaga maskaxdeena u galayso markaas waa sidaas imaatinka iyo tegitaanka inka qaybgalka xafladan caleemasaarka iyo dhaarta madaxweynaha cusub wax dhaqan ah ayay iska noqotay maraykan dhigaya madaxweynihii hore tagayay waa inuu tago oo qasabi ma jiro ilaa hadda madaxweynayaasha aan tegin waxaa lagu qiyaasaa kan markii saddexaadba markii afraadba way dhacdaa inay imaan waayaan ka maqnaanshihiisana aad bay usoo dhaweynayaan dhammaan marka xagga dhaqankiisa loo eego waa qof aan la controli karin wuxuu odhanayo oo aan ku koobnaanin xataa waxa loo qoro marka sida maamulka cusub ee imaanaya ay usoo dhaweeyeen baad ka garantaa in aan loo baahnayn inuu yimaado laakiin waxaa calaamad u ah in u dhaci doono xil wareejin si nabada u dhacda oo dowladii horena ay joogto dhammaan madaxweynayaashii horena way joogayaan madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga ayaa hogaaminaya dowladan hadda xilkeedii dhammaaday ee Donald Trump kabinetkiisa badankoodu way imaanayaan madaxweyne ku-xigeenkana arrintaa markhaati ka noqonaya oo joogaya marka isaga duhurka markay tahay January 20-keeda waxa uu noqonayaa qof caadiya cid ka amar qaadanaysa inay ma jirto waan gartay su-aasha ugu dambaysa maxamed aan ku weydiinaya waxa weeye ciidamada FBI-da waxay soo saareen digniino ay leeyihiin waxaa dhici kara mudaharaadyo la hubeysan yahay
weliba kontonka sideedna way ka dhici karaan. Marka maxaad malinaysaa maalinta inay dhici karaan maadaama hadda kahor ay last week waxaan oo kale ay dhaceen? horta wax kasta way dhici karaan wax kasta way dhici karaan oo 4 sanadood ugu dambeeyay waa la hadal hayay oo dadka qaar way sheegaan inay wax badan dhici karaan laakiin haddana dawladda Mareykanku wax badan way og yihiin ciidanka maalinkaasi Washington oo kaliya ilaalinaya 15 ilaa 30 kun oo qiyaasi doona 6 gobol oo u dhow DC ayaa ciidamo badan contribute gareynaya oo ciidamada la yiraahdo National Guard kamid baa jira ay dadkuna inay ogaadaan ciidamada Army-ga iyo Air Force-ka iyo Navy-ga iyo Marines-ku ma soo gali karaan localka arrimaha localka ee Mareykanka gudihiisa ciidamada ka howlgalaya waa booliska state trooper-ka ciidamada shariifka la yiraahdo iyo ciidamada National Guard-ka ee gobolada ay leeyihiin ciidamada hadda la diyaariyay ee hawsha gali doona xagga security-gana gacanta ku hayn doona waxa la iyo secretary-ska waxa lagu qiyaasaa ciidamada 15 ilaa 30 ah oo 6 gobol oo u dhow Washington ay maalinta ka howlgali doonaan marka dadkana waxa lagu dhiirigelinayaa dad kooban inay yimaadaan dadka aan la marti qaadin inaanay imaanin Washington waan gartay aad baa u maasantahay gal ma aha inay wax dhacaan meelaha qaar state kasta kontonka state dad rabtay state of Minnesota state capital dad garab marto aad baa security loo ilaaliyaa oo loo adkeeyay muhiimadda ugu badan dadkan laga cabsi qabo inay wax sameeyaan dad magaalooyinka waaweyn degan maaha dadka baadiyaha degan oo magaalooyinka ka baxsan safarkay soo galayaan iyo soo socoshadooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa la wada socdaa waan gartay aad baad u mahadsantahay Maxamed Cabdilaahi Shiino waa aad ugu faalooda arrimaha siyaasadda aad baad u mahadsantahay thank you bye